مدوغا يوروب وحانو شاغينا جمعيدا قربا كدخايسا وحانو شاغينا امدا وحانو لينay u sheegayna yacni wixii islaamay shahaadanayaa in sida kalluunka nala guranayo in ragayagi haldarkayagi la laastay inay madax diideen bartariya inta maxay taayeen barasaabka gobolka loo soo idmaday afar nin buu ka marayaa biidayaanis waxa weeye waa mid nala soo diray si degdeg ah hadana loo ka qaban waanu iska qaban doonaa waxaan ka xumahay dilka shalay ka dhacay degmada Calafweyn ee uu horeeyo gacanta ku leeyahay barasaabku koow ka yahay ee ugu jira taliyaha birmadku maxay tahay maalin walba dadka kibirkaas lagu laaya sharcidaradaas lagu soo dilaa in miskiin ah waxba geysan ayaa kibir lagu dilay waa ninkii lixaad sida lagu dilo dawladda Soomaaliland sharcidarada dadka waa adeegsatay maalin walba dirayska dadka lagu laaya kii aan u dhimanay ee dadka iyagu soo koobeelay baan hoostiisa ku dulmanahay waxaanu leenahay saacada musaandarab waxaanu sheegaynaa inuu dhawska asra xilka geed iska arsanaya u tageen inay u tageen warkaanaan cidi maamulka Calafweyn ogeyn oo shaqo ku lahayn oo barasaabka dul taalo oo intuu noo yimi afar sharci darro lagu dilay marayo intuu noo yimi isagay dul taal cidi lama ogeyn arinta shicibku ka kacay oo umada Ilaahay oo dhan ka kacday shalay nin rag buu ugu tagay ariyada dhexdoodii aan wax samayn dagaal ma samayn dil ma samayn inta la baaxsaday la soo googooyay isagoo buu hadeer araanka mayd yahay oo yaalay uu guri ku xidhan yahay oo sanduuq ku jira oo halka fadhiya oo aan cidi aasin oo cidi dhugan oo wixii dilay la soo sheegin oo aan cidi wali isku arag halka waxa weeye waxaana barasaabka ka dambeeya talaagada maydku ma taalo noloshu ku qurmay 3 xabadood baa ku dhacay ninkaas meel laga aaso iyo wax la aasaba ma aha 3 waa dhaawac tiray